faa'iidooyinka cajiibka ah laga helo xulbada marka lagu daro ama lagu qaso liin dhanaanta insha Allah waxaan sharxi doonaa 6 faa'iido oo laga helo xulbada haddii aad u isticmaasho sidaan ku sharxi doono insha Allah iyo dadka loo ogol yahay isticmaalkeeda iyo dadka aan loo ogolayn inay isticmaalaan iyo sababaha loogu diiday dadka qaar waa sharxi doonaa insha Allah sidoo kale waxaan sharxi doonaa marka aad ku darayso liinta talaabooyinka ay tahay inaad qaado waxyaabaha ay tahay inaad samayso xaddiga ama inta qaando ee lagu ogol yahay inaad isticmaasho maalintii waqtiga ugu fiican isticmaalkeeda iyo nooca saliidda laga sameeyo xulbada waxa loo isticmaalo saliidaas iyo sidoo kale dadka isticmaala kiniiniyada laga sameeyo maadadan xulbada sida horta inaad ka arkaysaan waa sharxi doonaa ayagan dadka isticmaali kara insha Allah si aad u wada hesho dhammaan faa'iidooyinka hadduu alla idmo si degan u dhageysa cashirka si faahfaahsan ayaa u sharxi doonaa insha Allah lana wadaag muuqaalka asxaabtaada si kula faa'iideystaan magacaygu waa Tor Cabdirasaaq soo dhawaada mar kale ka hor intaan u guda galin isticmaalkeeda ama isticmaalka xulbada aan ku bilowno faa'iidooyinka cajiibka ee laga helo xulbada iyo waxyaalaha ay u fiican tahay inaad u isticmaasho kow sida horta inaad ka arkaysaan waxay muhiim u tahay shaqada dheefshiidka oo sida calool fadhiga iyo dibriyada iyo qofka gaas fara badan hadduu dareemayo appetite qofka hadii uu xiran yahay sida loo isticmaalo dadka qaar oo gaaska qaba oo ku xanuunsada markay caabaan waxyaabaha ay sameynayaan waa sharxi doonaa si dheefshiidka u saxdo marka calooshaada hadii aad u fadhiso dheefshiidku qalqalsan yahay dibriyo badan aad dareemaysid xulbada aad ayay muhiim kugu tahay sababtan waxay tahay waxa la dhahaa halkii qaando oo ma aragtay oo xulba ah sida hortiina ka arkaysaan waxa ku jirto 3 gram oo fiber ah oo waxyaabahan mataqaana caloosha aad ku socodsiinaya ah marka sababta mataqaana keenaysa waa inay caloosha ama dheefshiidka ay saxdo marka aad ay muhiim u tahay dheefshiidka aad ay muhiim u tahay sida loo isticmaalayo xilliga ugu fiican la isticmaalo inta qaanda ah ka isticmaalayso maalintii xilliyada isticmaali karto waa sharxi doonaa insha Allah faa'iidada labaad waxay aad muhiim ugu tahay hormoonka lagu magacaabo hormoonka ragga ama testosterone wax loo yaqaan oo sida cilmi baaris hortiina ka arkaysaan waxa la dhahaa aad ay sare ugu qaadaa hormoonka ragga oo ragnimada ay xoojisaa dareen la'aan iyo damac yar iyo waxaasda ka cabanayso aad ku anfacaysa ayadoo kaniini aad jirto xilli isticmaal ayaa jira waa sharxi doonaa oo qofka hormoonka uu ku yar yahay xilli la siin kara ayaa jira waa sharxi doonaa sidoo kale wuxuu aad muhiim ugu tahay xulbada caanaha naaska oo hooyada hadii ay dareento umusha kadib in caanaha naaskeeda aad u yar yahay xulbada waa isticmaali kartaa kaniiniyaal jira hooyooyin loo ogol yahay jiro kuwa aan loo ogolayn jiro waa sharxi doonaa insha Allah qayb dambe cashirka ayaan ku sharxi doonaa balse caanaha naaska aad ay u badisaa ayadoo kaniini way jirtaa ayadoo caadi loo diyaarin way jirtaa labadaba cashirka qaybtiisa dambe ayaan ku sharxi doonaa qaabka loo isticmaalo marka caanaha naaska aad ay u ziyaadisaa afar sidoo kale dadka qaba xanuunka macaanka ama sokorta oo heerka sokorta ee dhiigooda aad ay u badan yahay oo blood sugar level wax loo yaqaan aydan aad ay u anfacaysa sida hortiina ka arkaysaan oo cilmi baarisada kala duwan lagu sameeyay waa sharxi doonaa insha Allah qaabka ay u isticmaali karaan hadduu Ilaahay yiraahdo cashirka qaybtiisa dambe sidoo kale 5 waxay faa'iido u tahay koriimada timaha gaar ahaan saliideeda marka isticmaasho saliidda iyo qaabka loo isticmaalo iyo waxyaabaha lagu daro iyo xilliga la isticmaalo dhammaan cashirka qaybtiisa dambe ayaa ku sharxi doonaa insha Allah sidoo kale qodobka 6 qofka hadii dufanka cholesterolka nooca xun jirkiisa uu ku badan yahay aad ay muhiim ugu tahay oo waa ay yareysaa sida hortiina ma ka arkaysaan marka aan guda galna qaybta ugu muhiimsan cashirka oo ah sida loo isticmaalo marka isticmaalka saddex u kala qaadayna midda dabiiciga ah oo midda hortiina ka muuqata ah midda kaniiniyaasha laga sameeyay iyo saliidda saa arkaysaan saddexdaas u kala qaadayna marka waxaan ku hormareynaa midda dabiiciga oo miraha ah sida loo isticmaalo sida hortiina ka arkaysaan qofku waxa wanaagsan ayaa la dhahaa hal qaando oo tablespoon wax loo yaqaan qaadooyinku way kala duwan yihiin sida hortiina ka arkaysaan midaan waaye oo qaadooyinku magacyo kala duwan ay leeyihiin waxa laga yaabaa qofku inuu isku qaldo oo qaado yar ama qaado aad weyn oo isticmaalo marka waxa fiican inaad kala fahamsan tahay had saa arkaysaan tan waxa la dhahaa tablespoon ayaa la dhahaa saa arkaysaan tan oo kale hadda egg spoon ayaa la dhahaa qaadada ukunta meena tan oo kale hadda teaspoon ayaa la dhahaa saa ujeeda midaan marka way kala duwan yihiin size-kan ama cabirkan ayaa isticmaalaysa midaan sharxayna tan waa cabirkan ayaa isticmaalaysa hal qaada marka sida hortiina ka arkaysaan waxa ku daraysaa galaas biyo ah waa ku karkarinaysaa muddo dhowr daqiiqo ah marka ku karkarisa kadib waxa ku daraysaa sida hortiina ka arkaysaan jeex liin ah liinta marka faa'iidadeedu waxay tahay in lagu daro absorptionka ziyaadinay nuugitaanka mandheeraha iyo nuugan way ziyaadinay kow laba sidoo kale
dhadhanka yani dhadhan fiican ayay u yeelaysaa maadaama qaraar ay tahay xulbada inta badan liinta in lagu daro waxay u fiican tahay xoogaa dhadhan ayay u yeelaysaa sokor iyo waxyaabahaas ma u baahnid yani waa iskaga darsan karaa qofka laakiin ma u baahno sidaana sida saxda ah marka jeex liin ayaa ku daraysaa galaaska biyaha calooshaadoo maran oo adoo waxba cun subax alisayda ama xilli hore ayaa cabaysaa marka tan waxay kaa caawinay dheefshiidka inay kaa saxdo caloosha socoto debriyada kaa saxdo maalinta marka halkaas yani galaas ayaa kugu filan oo halkaas qaada ku qastay biyahaas ku karkarisay oo dabka la saartay sidoo kale qofka wuxuu samayn karaa waa uu shiidan karaa oo cabitaan ahaan ayuu u shiidan karaa dadka qaar caana ay ku dhex shiidaan waa caadi dhib ma lahan liinta waa ku dhex shiidi kartaa wax dhib ma lahan يعني laakiin muhiimaddu waxay tahay inaad isticmaasho marka hal galaas oo kale hadaa rabto hal qaando oo qaandadan ayaa kugu filan wax yar waa siyaadsan kartaa wax weyn ma laakiin sida caadiga halkaas qaando qofku way ku filan tahay wixii ka yar ayaa faa'iidada yaraanaysa laakiin wixii ka badan waa caadi wax dhib ma laha marka dheefshiidkan ay ku saxaysaa hadaa xilligaas alisayda hore aa cabta ama subax hore aa shiidata ama biyahaas aa ku karkarisina biyo ku karkarisa aad u fiican ayadan aan nadiifiso marka hore maadaama miro ay tahay haddii aadan karkarinayn oo aad shiidaysina aad u nadiifiso waaye sidoo kale dufin cholesterolka nooca xun oo kale hoos ayay u dhigaysaa hormoonka ragga oo kale aad ayay sare ugu qaadaysaa marka waa muhiim dheefshiidka oo kale debriye iyo wax la mid ah dareemaysa ma caloosha ay fadhiso aydan aad ayay ku caawinaysaa sidoo kale timaha hadaa u isticmaalaysa ama madaxa u isticmaalaysa waxaa samayn kartaa laba qaando oo yani mirahan ah saa arkaysaan ama tablespoon qaadada noocan ah waxaa ku daraysaa 2 koob biyo ah 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo ayaa yani ku karkarinaysaa kadib waa qaboojinaysaa saa arkaysaan kadib yani madaxa marka yani shaambo ku dhaqdo sida hortiina ka arkaysaan qoraalka yani qofku markuu madaxa shaambo ku dhaqo kadib madaxu nadiif ah yani ayaa marinaysaa oo ku masaajeynaysaa waa marinaysaa marka dhowr daqiiqo ayaa ku dhaafaysaa kadib biyo ayaa ku dhaqaysaa sida hortiina ka arkaysaan marka dadka agoolka iyo madaxa nabraha iyo waxyaabahaas ku leh oo kale markaas aad ayay u anfacaysaa inaydu saliidna way jirtaa qofka yani waa uu marin karaa madaxa oo timaha oo kale oo kariimada timaha iyo go'go iyo waxaas ay ka caawisaa yani go'go inay ka hortagto ama ay baabi'iso ama timaha qofka daadanayo ama kariimada timaha inay yani ka caawiso qofka marka aad ay muhiim u tahay iyadoo kaniini laga sameeyay waa jirtaa sida hortiina ka arkaysaa ragga oo kale hormoonka ragga doo ku yaryahay oo dareenka iyo hamiga iyo waxaas aad u yaryahay oo kale muddo ma aragtay 8 isbuuc sida hortiina ka arkaysaan oo 2 bil camal hadii la siiyo iyadoo yani daawadan laga sameeyay maadadan aad ay dareenka iyo damac iyo wax dhan kor ugu soo qaadaa oo hormoonka testosteronka iyo kor u qaadaa marka waa muhiim yani iyadoo kaniini ah oo isticmaali kara hadduu caadi yahayna saa u sheegnay u diyaarsan karaa subax kasta oo caabi karaa marka dumarkana kaniiniyaashan waa loo qoraa ayagana oo dhaqaatiirta dadka dibadaha jooga inta badan waa la siiyaa oo soo saarka naaska caanaha ay aad u ziyaadaysaa hooyada cunug nuujinay yani soo saarka naaska caanaha aad ugu yaryahay aad ay u anfacaysaa sida hortiina baa ka arkaysaan xulbada isticmaalkeeda dad aan loo ogoleyn ayaa jiro waxaa ka mid ah hooyada markay uur leedahay sida hortiina ka arkaysaan ma wanaagsan ay allah xulbada inay isticmaasho oo cunuga ay problem ku keeni kartaa xubnaha kala duwan ee jirkiisa samaysanka ay samaysmayaan macnaha ay malformation ku keeni kartaa way dhib badan tahay sidoo kale qofka xasaasiyad uu ku qabin iska dhaafo waaye sidoo kale ilmaha yar supplementyada ama waxyaabaha xulbada laga sameeyo laguma taliyo in la siiyo laguma taliyo markii fahanteen ayaa rajaynayaa liinta waxa loogu daray faa'iidada waxay tahay in absorptionka ama nuugitaanka ay ziyaadiso si faa'iidada dhan u hesho inay dhadhan u yeesho labadaas faa'iido ayaa loogu daraa markii fahanteen ayaa rajaynayaa assalaamu calaykum